بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وحين سوقعني سورة المنافقون. سورة المنافقون waxay ku soo degtay magaalada Madiina. waxay ka waramaysaa inteeda badan suuradu dhammaanteed munaafiqiinta tilmaamaha lagu yaqaano iyo sidii looga gaashaamo lahaa la isaga ilaalin lahaa. qaybo suurada ka mid ah waxay leedahay sababu nuzuul, waan arki doonaa insha Allah. waqtigu nabigu Maka joogay calayhi salaatu wassalaam munaafiqiin mayna jirin, sababtoo ah munaafiqu waa qofka gaalnimana qarsanaya islaamnimana muujisanaya. cabsi iyo baqdin uu islaamka ka qaba darteed ayuu gaalnimana u qarsanayaa islaamnimana u muujisanayaa. marka waa qof daciifa oo gaal ah oo si uu u survive garoobo oo naf iyo maal uu ula badbaado iyo interestiga danaha uu leeyahay ee islaamka uu ku dhex leeyahay buu daahirka kore iyo bidhaanta kore islaamnimo sheeganaya, hoostana gaalnimadiisii ku qarsanaya. marka arrinta noocaas oo kale ah waqtigii Maka la joogay maynan jirin. calaykum assalaam waraxmatullah. waqtigii Maka la joogay maynan jirin, sababta gaaladu iyagaa wiik ahaa oo muslimiintu iyagaa daciif ahaa. marka reason ay gaalo ay munaafiq u soo baxaba ma jirin. markii Madiina la yimid muslimku ilaahay dowladu dhaliyay nabigu sallallahu alayhi wasallam iyo muslimiinta ilaahay quweeyay ee ay xoogeysteen, yani nimankii gaalada ahaa ee magaalada Madiina ku noolaa qayb xamili weyday islaamkii inay ku hoos noolaadaan oo cararay, iyo qayb munaafiqiin ah oo gaalnimana qarsaday islaamnimana muujistay si ay u badbaadaan bay noqdeen. suuradda marka nimankaas iyo tikniigii ay adeegsan jireen iyo khaa'inimadoodii bay ka waramaysaa. wuxuuna aad ilaahay ugaga waramay tabaaraka wa tacaala nimanka munaafiqiinta la yidhahdo dhaqan xumadooda. suuratu tawba, suuratu lfaadixa la yidhaahdaa, dhaqanadoodii xunxumaa oo dhan bay bannaanka soo dhigtay. suuratu laxzaabna ilaahay uu kaga warramay meelo ka mid a, iyo suuratu lbaqara bilowgeeda. ilaahay wuxuu leeyahay bismi illaahi araxmaani araxiim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. waxaa nabiga lagu leeyahay calayhi salaatu wassalaam idaa jaaaka markay kuu yimaadaan nebiyow almunaafiquuna kuwa munaafiqiinta ah waa hypocrites weeye, kuwa gaalnimana qarsanaya islaamnimana muujisanaya. markay kuu yimaadaan yacni adoo meel fadhiya meel jooga markay kula kulmaan ay kula soo fadhiistaan qaaluu waxay yidhaahdaan innaka adigu nashhadu waxaan qiraynaa innaka adigu la rasuulullah inaad rasuulka ilaahay tahay baan qiraynaa. wallaahu ilaahayna yaclamu wuu ogyahay, ilaahay baa ka hadlaya. innaka adigu nebi muxamedow la rasuuluhu rasuulkiisa inaad tahay ilaahay wuu ogyahay. munaafiq markhaati loogama baahna. waxaa kaloo ilaahay ogyahay wallaahu ilaahay yashhadu waxaa kaloo markhaati ka yahay ina almunaafiqiina nimanka munaafiqiinta ah lakaadibuuna inay beenaalayaal yihiin. hadalkan wuxuu ilaahay nooga warramayaa munaafiqiintu siday isu difaaci jireen. nabigana sala allahu alay wasalam ay kaadh ula soo bixi jireen ay muslimka kula dhaqmaan. gaalada markay u tagaanna kaadh kale la soo baxayaan. waa laba shaatiilayaal wey, waa laba kaadhlayaal wey, marba mid bay ciyaarayaan. markay gaalada muslimka la joogaan waxay leeyihiin innaa macakum
annagu miciinaan nahay idinkaan idinla jiraa mu'miniin baan nahay وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون شياطين تودي مركي وتقانا وحيليهم روحا سعيال عيار بنقاه إذن كان إذن لجرها مركا إلهي عز وجل جزاك الله خير إلهي وحكا ورمي تبارك وتعالى هذا الكي أيديه جيرين نشهد إنك لرسول الله وحنقرنا إن رسولك إلهيته وحا عجيبة وحي أذيك سدين very strong word كلمة حوق بدن نشهد وانقرينا which means شهادة وحا ليهذا قفك قلبيس يعرب كيسو مركي إسليهن مركي إرجع أذيك سدين وفرس معناه هذا وحا أن أفكا كلنا هاي قلبي جينا ويكجرته and that's false وبينوي إلهي بقى جوابي وحول تبارك وتعالى أنت ولي وركودي بلا قارن ومركودي لبرنين يا إلهي وحول والله يعلم إنك لرسوله إلهي وحول هاي تبارك وتعالى إن رسولك سيتا إلهي وحول معنى هذا وحوي منافق وركيس رسول كماذا نقول كنا نقول مس هدوك بيني هدوك الرميانة وحبك ودي ميس إلهي بمرخاتك وغفرا والله يشهد وحكلو إلهي مرخاتكيه إن المنافقين منافقين لكاذبون إني بين لياليهن وفي رسالة كاس إلهي وحنا منافقين بين ليال معنوهم معها رسول لماذا أيكوغو شيغيان با بين معها سي أن تال لوغو ملاينين وإن تاس ودعين با وحا لهور مريي والله يعلم إنك لرسوله marka rasuulnimada kugu sheegayaan bay been ku sheegayaan ma laakiin hadalka ay sheegayaan oo ah waan qirayna oo qalbigayga ay ku jirtaa inaad rasuul ilaahay tahay ba been oo fiirsalkaas rasuulnimada kugu sheegayaan waa xaq oo rasuul waa tahay oo ilaahay baa taa maraka laakiin midda ay leeyihiin nashhad waan qirayna oo qalbigayga ay ku jirtaa ay leeyihiin wallahu yashhadu innal munaafiqiina lakaadibun inay taa been ku sheegayaan ilaahay marag bukay marka iyagu haday wax qarsadeen rabbul alamin ilaahay baan waxba laga qarin karin you cannot hide anything from Allah azza wa jalla dadka waad u ka sheegi kartaa bini aadanka you can tell the human being something false but you cannot cheating Allah azza wa jalla because he knows whatever you are hiding in your heart wax kasta qalbigaaga ku qarinayso so no one can cheat Allah tabaraka wa ta'ala إذا جاءك مركي كوي مادين المنافقون منافقين أي كل صو كل ما كوي مادان قالوا وحيد هذا نشهد وحنقرنا أن مركرنا إنك أذق لرسول الله إن رسولك إلهيته إلهي وحول والله الله يعلم إنك لرسوله أذق رسولك زيناته والله إلهنا يشهد وحقر يوم مرخاتكيه إن المنافقين منافقين لكاذبون إن بين لياليهم oo waxaan ay leeyihiin qalbigayga ku jirtaa oo rasuul ilaahay baa tahay baan qirayna waa been ma qirayaan isma waafaqsana ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum saa ma kanu ya'malun aydan waxay ka jawaabaysaa way haday gaala yihiin may gaalnimadooda iska sheegtaan why something different oo ka duwan waxa ay qalbiga ku hayaan ay u sheegayaan إلهي وحده تبارك وتعالى وحي بينت أشيغيان وسي انترستيغودا أي مسلم كو دخليهين أين أولهم سي أين أولوس غرينين أو إنن أواين دانها إسلام كدخيالا سي أين نبضو كو نولادان سي أي أسرفايف غروبان إيغا نفتودا ريركودا إيو خولهودا انتوبا سمعت markaasay waxay ku dhaaranayaan been iyo hadallo xun soo wax walba xun bay ku hadlayaan marka la yiraahdo waa sideen waxay leeyihiin no way dhaaranayaan waxay leeyihiin maya we didn't do that we didn't say that khalad ma nangil so they protected themselves inaan wax dhiba ku dhicin ilaahay wuxuu yiri ittakhadu waxay ka dhigteen aymaanahum dhaartoodii waxay ka dhigteen junnatan gaashaan protection bay ka dhigteen dhaartooda si ay isku protect gareeyaan waxay ku hadlayaan kalimatul kufri eragaalnimo nabigay wax ka sheegayaan oo ay caayayaan alayhi salaatu wassalaam saxaabaday caayayaan quraankay wax ka sheegayaan muslimkay maagayaan marka la hadlay leeyahay war maxaa sidaa u dhahdaan way ka dhaaranayaan
iyagoo gaalnimo ku hadlay bay haddana ka dhaaranayaan si ay isu protect gareeyaan oo muxuu ahaa ayna consequences aynan uga dhalanin waxa xun ay ku hadlayaan aan punishment loogu samaynin oon loo qabanin oon loo xidhin oon loo dinin way dhaaranayaan marka ilaahay wuxuu leeyahay ittakhaduu waxay ka dhigteen aymaanahum dhaartoodii waxay ka dhigteen junnatan gaashaan iyo protection bay ka dhigteen fasadduu way jeedsadeen can sabiili illaahi jidkii ilaahay bay ka jeedsadeen ama dadkii bay ka jeediyeen labaduba waa sax fasadduu dadkii bay ka jeediyeen can sabiili illaahi jidkii ilaahay bay ka jeedsadeen innahum iyaga saa'a waxaa xumaaday maa kaanuu yacmaluuna waxay samaynayaan baa xun waxay samaynayaan waa maxa waxay samaynayaan waxyaaba actionis oo xun actionis xun bay qaadayaan waxay samaynayaan words iyo hadallo xunxun labadaba way samaynayaan qaar ka mida waan u tegi doonaa iyagoo nebiga caayaya calayhi salaatu wassalaam muslimiinta caayaya oo maagaya oo wax ka sheegaya soo waxay samaynayaan oo dhan waa wax khaldan wey sababtoo waxaaba kow ka dee qalbigooda iyo actionkooda inuuna islahayn yani waxyaabaha muxuu ahaa madharkooda khaarijiga iyo inuunan islahayn waxay qalbiga ku qarinayaan ittakhaduu waxay ka dhigteen aymaanahum dhaartoodii waxay ka dhigteen junnatan dhaarta ay dhaaranayaan waa marka la yidhahdo waryaa maxaad sidan u samayseen ama maxaad sidan u dhahdeen war waxan maxaa idinku kallifay bay dhaaranayaan no wallahi maanaan dheh waayo waa wax gaalnimo ah wayna dheheen ogow hadda waxay marka u dhaaranayaan to protect themselves inaan wax xun lagu samaynin inaan la ciqaabin inaan loo raacanin fasadduu way jeedsadeen can sabiili illahi jidkii ilaahay innahum iyaga saa waxaa xumaaday maa kaanuu yacmaluun waxay samaynayaan ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك أرنكاس أرنكو أرنكه وحمانتا أي سمينيان حمانتا أي سمينيان waxay ku dhacday biannahum iyagu sababtu waxa weeye biannahum iyagu aamanuu ilaahay bay rumeeyeen uma kadibna kafaruu way gaaloobeen fatubica waa la daboolay calaa quluubihim quluubtoodii baa la daboolay waxba ma gelaya marka waxay la mid tahay suuratu lbaqara khatama allaahu calaa quluubihim wacalaa samcihim wacalaa absaarihim ghishawa taasay la mid tahay fahum iyagu laa yafqahuuna waxba ma fahmayaan wax khayr ah oo gelayaa ma jiro waxba ma fahmayaan halka waxaan ka qaadanaynaa nimankan waxay waxba la geli laayihiin qalbigoodii baa daboolan waxaa kaloon ka qaadanaynaa macsiyadu inuu qalbigoodu daboolmo oo waxba ay geli waayaan waxaa sabab u ah akhlaaq xumada iyo muxuuha dembiga ay samaynayaan marka dembiga ay samaynayaan waxaa ka dhashay in ilaahay qalbigooda alxamo waxaan ka garanaynaa halkaa macaasidu waxay dhalataa muxuu ahaa bad impact bay leedahay macaasidu waxay leedahay iyo dembigu wuxuu leeyahay bad impact aathaar xun baa ka dhalatay marka xumaantii iyo macsiyadii iyo asxaabtii iyo nebigii iyo qur-aankii iyo allah iyo muqadasaadkii ay maagayeen ay wax ka sheegayeen waxay dhashay oo ka dhashay in ilaahay qalbigoodii alxamo oo qalbigoodii la daboolo soo maarat laakiin ha u qaadanin intii qalbigooda la daboolay bay wax geli waayeen ha u qaadanin sidaas ma ah sababtoo haddii marka hore qalbiga la dabooli lahaa dee maxay wax la fahmi laayihiin laguma eedeeyeen sababtoo uu daboolan yahay laakiin edabdaradoodii iyo dembigoodii iyo macaasidoodii baa waxay dhashay consequenceski ka dhashay baa wuxuu noqday in qalbigooda la daboolo laakiin qalbi daboolkii beenin iyo inaynan ilaahay rumaynin kamayna dhalan laakiin beenintoodii iyo rumayn la-aantii ilaahay ay rumayn waayeen iyo macsiyadoodii iyo dembigoodii baa waxaa ka dhashay qalbigu inuu daboolmo سمعت marka way kala duwan yihiin there's different farqi baa u dhaxeeya macsiyadii iyo dambigay ku dhex jireen baa wuxuu dhalay qalbi dabool سمعت laakiin muxuu ahaa iimaan la'aantoodii muxuu ahaa mayna ka dhalanin qalbi dabool kamayna dhalan laakiin qalbi daboolkii baa waxa ka muxuu ahaa macsiyadii baa waxa ka dhashay iimaan la'aan dalika arrinkaas oo ah xumaanta ay samaynayaan biannahum iyagu sababtu waxa weeye aamanuu ilaahay bay rumeeyeen uma kadibna kafaruu way gaaloobeen maxaa loola jeedaa ilaahay bay rumeeyeen way gaaloobeen ma mar waxaa jirta ay mu'miniin dhaba ahaayeen u fiirsa halkaas ilaahay bay rumeeyeen baa la yidhi haddana way gaaloobeen ma mar bay mu'miniin dhaba noqdeen nimanku munaafiqiintu
laba tafsiir labaduba waa sax in la yidhaahdo aamanuu ilaahay bay rumeeyeen oo daahirka kore ka rumeeyeen korka maaha iimaankii saxda ah uma kadibna kafaruu way gaaloobeen oo kelmad gaalnimo oo badheedha bay ku hadleen waxay sameeyeen hadallo iyo actions iyo ficillo gaalnimo ah waa qodob marka aamanuudu macnaheedu waxa weeye korkay muxuu ahaa daahirkay ka rumeeyeen uma kafaruu way gaaloobeen oo daahirkiina way ka gaaloobeen sababtoo wax badheedh oo xumaana bay sameeyeen oo gaalnimo mufasiriinta qaarkood waxay leeyihiin aamanuu ilaahay bay rumeeyeenoo iimaankooda iimaankii qalbigooda wuu galay laakiin maxaa dhacay kumayna sugnaanina uma kafaruu way gaaloobeen laakiin tafsiirka hore baynu ku soconaynaa oo ah aamanuu way rumeeyeen korkay ka rumeeyeen muminiin saxa maaha laakiin waxay ka rumeeyeen korka kore uma kafaruu way gaaloobeenoo si caddaana bay gaalnimo uga soo baxday haddana fatubica waa la daboolay calaa quluubihim quluubtoodii baa la daboolay fahum laa yafqahuuna wax ma fahmayaan وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون وحا أيضا كور رميسا تلمامها منافقين ولما تلمامها هذا لقوا رمي وحوي وفيسيكال محوها شرك هذا وأودوارد أبيرنس هذا يعني محوها مقالك كورة استراكشر هذا كورة بل على مدى هذا السيدي وجهين يا لقى شيكينيا يقابك ونغمانية إلهي وحوليه وإذا رأيتهم منافقين هذا أركته تعجبك ويكعجب جلنيسا والله يا بيسا أجسامهم شركوذا أدبض ولا يا بيسا سمعت محل قبضة شركوذا والله يا بس يعني وأنا من قروح بدن لا لا يا راحة يا حالة يا بدن قروح بدن كم مقطع سمعت وإن يقولوا هذي هذلانا مركز شاكينا يعني هذليانا تسمع واحد جيسانيسا وتقول لك رار عنيسا وتصفي عنه جيسان لقولهم هذا القول وأنا من أفتهنا أو هذل أو أو شاكين أو فصاحة له أو وحكي شيدين أو وحكي دبري أو هذي هذلانا يقوم بعد جيسانيسا إلهي وحده تبارك وتعالى هابط قلبي قوضة كور المركز تاسي وفيزيكال وأدوار appearance قوضة كور ومقالك كور إلهي وحده قلبي قوضة بهذا لقوا رمية وإن كأنهم واحد مودا خشب قريه جيده مسندة أو ميل لغو تيرتيري كذا ميل لغو تيري بعد مودا معنى هذا واحد وهي جيد كوحو قيمة كلية إن أما قري لغو رستو أما الضب لغو شتو أما لما نافعات صدو لكن قري الواح أو ميل اسكيها أو واحد نافية فائدة أوليها أين نجيرين قيمة ماله واحد قيمة أوليها ما جرت معنى هذا واحد وهي nimankani appearance iyo kore iyo physically iyo jir ahaan waa rag labisan oo qurqurux badan oo bidhaan tooda ay fiicanta laakiin qalbigoodu uu maran yahay iimaan ma leh waa qori alwaax oo meel yaalla oo qalfoofa qori alwaaxa oo meel yaalla oo qalfoofa oo wax macna aan ku fadhin oo manaafacaad aan lahayn macnaheedu waxa weeye qalbigoodu iimaan iyo wanaag iyo khayr wuu ka maran yahay waa alwaax meel yaalla oo kale wey halka waxaan ka garanaynaa marka ilaahay tabaaraka wa tacaala structure-ka kore bini aadanka muxuu ahaa it doesn't make sense wax macno leedahay ma jirto qofka muxuu ahaa outward appearance-giisa kale muuqaalka kore bidhaanta kore structure-ka qofku wax macnaa ma leh ولذلك الله تبارك النبي وأقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم إن الله ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلهي بدانتين يا ستراكشر كيني وحص معناه وما فرده لكن إلهي وحو قيمانه وقفك عمل كيس هي قلبي كيس تاسع مهم سببتها ستراكشر كقفك هو وح كحرا حولها يراحة يوحص تاسنا إلهي أكتي وحوين كما إلهي تلمان تاسو مركا كل شيء كو إنه يهين نمن ستراكشر نمن راح يستوي وحوها حولها يستين يهين بادقرانيس وإذا رأيتهم مركا ضرقت المنافقين تعجبك ويكو عجب قلنسا ويكو ياب قلنسا وادوبو قيسا أجسامهم شركوض وإن يقولوا هضي هضلان ويوحلهانا تسمع وادقيسانيسا لقولهم هذا القول وكسوتشي ذنيا إلا وقف من شروي كأنهم واحد مودا هذا نساسو يتهاي قلبي قوضا مركا لا يقصدوا خير وقمرين خشب قيدة يقريو مسندة ميل لغو تيريو أو المنفع لهين قرية انقاقنو ميليال
تكلا إلهي وحول يحسبون وحي لينيان كل صيحة قيل دان كستا قيلك كستا تنشن كستا عليهم دوش وضينته حلو ليش هذا قيلك كستا دوش وضي موديا وحلقة وضع wax kasta oo qayla dhaana ama war ah waxay moodayaan wax iyaga against ko in iyaga loo jeedo illa qofka hadduu dakana galo balaayo uu sameeyo always attention kiis uu taagan yahay so tension kasta oo soo yeedha iyo dareen kasta oo jira wuxuu isleeyahay oh it is about you adiga laga hadlaya adiga kugu saabsan tahay adaa wax laga sheegaya aayad haday soo degto waxay moodayaan iyaga in laga hadlayo iyaga laga sheekeynayo laba qof oo muslimiin oo meel ku sheekeysanaysa in iyaga la hadalhayo nabigu hadduu hadal sheego uu khudbeeyo in iyaga loola jeedo qofku markuu khaldan yahay waa qof yani mar walba dareen uu ku jiro wey marka munaafiqiinta dhaqankooda waxaa ka mid ah wixii soo yeedhaba waxay isu qaadanayaan iyaga in loola dan leeyahay yaxsabuuna waxay moodayaan oy u malaynayaan kulla sayxatin qaylo kasta yacni dareen kasta wax kastoo soo kordha calayhim iyaga dushooda inuu yahay oo iyaga against ku yahay iyaga in loola dan leeyahay inuu iyaga dhib ku yahay ilaahay wuxuu yidhi caza wajal hum iyaga unbaa alcaduw cadow ah waa cadow nimankaas faxdarhum yani ka digtoonow ilaahay wuxuu leeyahay be aware for them of them iska ilaali ka taxadar qaatalahum allahu lacnadii ilaahay ha ku ridee annaa sideebaa yu'fakuuna khayrkii looga jeediyey qaatalahum allah qatala haddaad qur-aanka ku aragtay inta badan ood weliba la raaciyo ilaahay qatalahu allahu iyo qaatalahu allahu iyo waa lacnadu wey qaatalahum allahu allah ha lacnadee waxa weeye waa the cursing of allah tabaaraka wa tacaala muxuu ahaa be on them korkooda ha ahaatay wey lacnadii ilaahay annaa yu'fakuuna sideebaa khayrka looga jeediyey maxaa loo leeyahay iyaga unbaa cadow ah faxdarhum humul caduwu iyagaa cadow ah faxdarhum ka digtoonow gaaladu miyayna cadow ahayn kale munaafiqiinta maxaa loo leeyahay iyaga cadow how about the other non-Muslims other muxuu ahaa non-believers like muxuu ahaa yahuudda kiristaanka gaalada kale mushrikiinta so cadow iyaguba ma so maxaa loo leeyahay iyagaa cadow ah iska jir maxaa loo leeyahay what do you think because iyagu waxa weeye waa wax kula nool wey waa insider muslimkii bay ku dhex nool yihiin so dadkii bay ku dhex jiraan way la dhilgaraynayaan communitygii bay ka tirsan yihiin muxuu ah muslim bay iska dhigayaan waxay hayaan waxyaabo badan oo sirtii muslimka waxaa marka aad u adag qofka noocaas oo kale inaad iska ilaaliso way adag tahay waa very hard qofka noocaas oo kale inaad iska jirto sababta gaalada kale gaalnimadooda bannaankay taallaa waa something clear so waad ka taxadari kartaa waad iska ilaalin kartaa waad iska jiri kartaa hadduu kula dagaalamina de waa dagaal cad baa idinka dhexeeya haddaad heshiis gelaysana heshiis baa idinka dhexeeya diintiisu waxay tahayba bannaankay u taallaa uu muujisanaya kaa isaga marka waad is ogtihiin laakiin midka islaamnimada sheeganaya ee calooshana gaalnimada ku qarsanaya ee conspiracyga iyo mu'aamarada iyo shirqoolka muslimka u dhigaya ee haddana kula noole kugu dhex jira kaas weeye problemka ugu weyn that's why allah tabaaraka wa tacaala uu leeyahay humul caduwu iyagaa cadow ah cadowga dhabtii waa kuwaas ee faxdarhum ka digtoonu iska jir so message-ku nabiga ayaa lala hadlaya calayhi salaatu wasalaam laakiin waa message inagu wada socdo in la iska ilaaliyo faxdarhum iska ilaali qaatalahum allahu ilaahay ha lacnadee annaa yu'fakuuna sideebaa khayrkii iyo xaqii looga jeediyey waidaa qiila lahum tacaalow yastakfir lakum rasuulu llahi lawow ru'uusahum wara'aytahum yasuduuna wahum mustakbiruun waxay ka hadlaysaa aayaddani marka intuu khalad ay sameeyaan saxaabadu ay dhahaan war nebigu ilaahay dembi dhaaf ha idiin weydiiyey ilaahay rasuulkiisa u taga oo ilaahay dembi dhaaf ha la idiin weydiiyo waxaasi agtooda qiimamo kama leh wuxuu leeyahay waidaa qiila lahum tilmaamahooda waxaa ka mid a marka lagu yidhaahdo munaafiqiinta tacaalow kaalaya yastakfir lakum dembi dhaaf ha idiin weydiiye alle rasuulullahi rasuulkii ilaahay dembi dhaaf ilaahay ha idiin weydiiya kaalaya marka la yidhaahdo lawow way dadbayaan way jeedinayaan ru'uusahum madaxooday jeedinayaan oy laabayaan madaxay dadbayaan wara'aytahum waxaad arkaysaa yasuduuna iyagoo jeedsanaya ama yasuduuna iyagoo dadka khayrka ka jeedinaya wahum iyaga oo mustakbiruuna isla weyn iyagoo isla weyn iskibrinaya
macnuhu waxa weeye khayrka loogu yeedhayo iyo rasuulka ilaahay wax respecti ay u hayaan iyo wax wanaagii ma jiro istikfaarta nabigu sala allahu alay wasalam iyo inuu ilaahay dembi dhaaf u weydiiyana agtooda qiimo kama leh wax weyna kama sawaaun waxaa isku mida calayhim munaafiqiinta dushooda waxaa isugu mida astakfarta u dembi dhaaf weydiisaya lahum iyaga ilaahay u dembi dhaaf u weydiisaa am lam tastakfir lahum ama dembi dhaaf umaadan weydiininaaba laba gooraba lan yakfira allaahu lahum marnaba ilaahay u dhaafi mahay sababta munaafiq waa gaal gaalnimana ilaahay ma dhaaf nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa waxaa lagu leeyahay inaad ilaahay dembi dhaaf u weydiiso iyo inaadan u weydiinin is equal to them wax macno ay samaynayso ma jirto macnaheedu waxa weeye ilaahay nimankaa marnaba u dembi dhaafi mahayo sawaaun calayhim astakfarta lahum am lam tastakfir lahum lan yakfir allahu lahum muxuu ahaa markii ibnu ubay uu dhintay baa nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ilaahay baan dembi dhaaf u weydiinaya suuratu tooba ilaahay tabaaraka wa tacaala kaga warramay markuu nebigu sal ly slam nin fiican oo aad u wanaagsan oo wuxuu dhalay cabdullaahi la dhihi jiray ninkii munaafiqiinta ugu weynaaye cabdullahi ibnu ubay ibnu saluul la dhihi jiray wiil fiican oo saxaabiya buu dhalay oo cabdullaahi isna la yidhaah nebigu isagoo ninkaa ku raalli gelinaya baa qamiiskiisii iyo maradiisiina waa lagu kanfay munaafiqi nebiguna wuu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxaa nabiga lagu yidhi sala allahu aleyh wasalam waxaas waxba ka tari mayso si walba ood ilaahay dembi dhaaf ugu weydiiso waxba u tari mayso haddana waaba laga reebay waxaa la yidhi walaa taqum muxuu aha walaa tusalli calaa axadi minhum maata abadan walaa taqum calaa qabri munaafiq dhintay dib dambe ha ugu tukanin qabrigiisana ha u tegi dib dambe ha ugu tegi aayaddii markuu ilahay yidhi tabaaraka wa tacaala in tastakfir lahum 70 maratan falan yakfir allah 70 goor haddaad ilahay dembi dhaaf u weydiiso loo dhaafi maayo macnaheedu ma haddaad 70 ka badisa waa loo dhaafaya laakiin waa meesha hadda aan dhahno war kun jeer xataa haddaad hadasho ku siin mahayo kale samar marka waxaa ilaahay inoo sheegaya tabaaraka wa tacaala nimanka dembigooda intuu leeyahay ilaahay wuxuu wa idaa qiila lahum marka lagu dhaho tacaalow kaalaya munaafiqiinta yastakfir dembi dhaaf ha idiin weydiiya ilaahay lakum idinka rasuulullahi rasuulkii alle lawa way jeedinayaan ru'uusoo madaxooday jeedinoo dadbayaan macnaheedu waxa weeye ma siinayaan wax ihtimaam iyo ahamiyada wa ra'aytahum waxaad arkaysaa yasuduuna iyagoo jeedsanaya ama dadka khayrka ka jeedinaya wahum mustakbiruuna iyagoo iskibrinaya sawaaun waxaa isku mida calayhim dushooda isku mida astakfarta lahum dembi dhaaf ilaahay u weydiisa ah am lam tastakfir lahum ama ilaahay dembi dhaaf umaadan weydiininaaba lan yakfira allaahu lahum ilaahay u dembi dhaafi maayo ina allaha ilaahay laa yahdi ma hanuuniyo القوم الفاسقين قل فاسقين وضاعدي إلهي خيرك كدح بحي ولو كرواي إلهي هنون مسيني هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون لبضنا أيضا ذا صوصع تسبب النزول بيلهاي صوتك كسو دقين وحي هيد دقال لديه جري غزوة المريسيع أما بنو المصطلق النبي صحابه عليه الصلاة والسلام ويدولين ibnu ubayna hadoogow ciidanka duulaya jihaadka adaya uu ku jira iyo tiimkiisi munaafiqiinta sababta dee nimanka dhib badan baa haystay oo dagaalkii bay ka qayb galayaan sababta hadday hadhaan dee way ceeboobayaan oo waxoodii baa ceebtay baa bannaanka imanaysa sikadii bay bixinayaan sababta walidaalika bu ilaahi tabaaraka wa tacaala markuu ilaahay leeyahay muxuu ahaa inamaa yuriidu allahu an yucadibahum aayaddii maxay fi suurati tawba ku jirtay أن يعذبهم بها حولها وضع إن لقوا عذاب على الربا مفسرين تقالوا وحي لين قابك حولها لقوا عذاب يوحوي حولها جي أذن ربن وأجرنا أذن كهلين وهذا أنا بحنا يسوع عذاب ما إن بحسنا أذن ربن وضم كفرت بالكوهين أجرنا أذن كهلين هذا أنا بحنا يس وأنه عذاب إنما يريد الله أن يعذبهم بحولها لقوا عذاب ياض معنا ذوازي كذا أي كوب بحنا هيان أي نفط هذه يكون عشان ين حولها وضع يسلين الذين فهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها أيدي كان اللي يعذبهم بها marka waxa dhacday iyadoo dagaalkii ay la socdaan oo jihaadkii ay ku jiraan ba niman saxaabada kamida nin ansaari iyo nin muhaajira oo ceel biyo ka dhaaminaya ciidankii oo meel degay ba waxa dhacday iyagoo ceelkii biyaha ay ka dhaansanayaan bay isku dhaceen labadiina waxoogaa way isqabteen nin ansaara iyo nin muhaajiriin ka tirsan markay isku dhaceen waxoogaa sheekadii way fogaatay
هذا الذي ويسيد تركان لبدين المذوح ريال الأنصار وريا أنصار يسوع جرمد أنصاري نيجي مهاجرين أنا وحول ريال المهاجرين والمهاجرين يسوع جرمد وحاجة هو شوي كعادة مركب عبد الله بن أبي ومنافقين تأوها باص هرجوجوها وعيدن كل حجري باشا كذي على الله شيء استجونا ظاهر كره يو كترسيه ما أنصار بكترسيه مثل مهاجرين أنصار دي سووا مدينة ووحول الله حنا قبل واحد كمية هاي استجوا الربعين لقد يقوم محوها أوجاسك أما نبضانك قبيلك أنصار ودن بنبي ويمد مركزها وحول أركي استجيب إن لو جسمه محوها وفترة إن لسه لو جسمه لا أفهم بيوت شقيد لقات وأوجاس نمديسي محوها سلطان نمديسي جراد نمديسي مالك قدع ماله محوها مركب عيل قاضي المهم وركي مركو مغلبي وحولي أوكي وما أنت أنا نمكي مهاجرينها مين ماجن ما أنا جيبي نفقنا ماجن صار نمكي حولها يجي مدينة يوحول بأنه كسر وين ما أنا جيب رباننا محوها هذا النقص عليان وحولي هالدين نمكاس حولها أنك جوين لهين وصباط أن نصين لهين وأن المدينة كسر وين لهين وحولها يجي يبيرها يجي نقالها يجي أنا نلا شهر جرين لهين ما أنت توحى كم بين هذين أروح يقول إنما كيدين كبرية حولها كجوية أو عاوننا أو شيلنا سنين مركز أروح يقول ولبا هذا الله سيح الحب وسيل وحولي إنما مثلنا ومثلهم النجي يجوا وحنا لمنها هي ما ذي نكى هو ويرسم من كلبك يأكلك أي جاجا راشين كدرج أو عيل مركز تمنها كعون أنت درجنا هذا النجي هذا النوس علنايا وحولي والله هذا المدينة كنا قلنا لا يخرجن الأعز منها الأذل رجع نينك شرفت له عزيز كقيمها له كوا الدل جا مجالات الديبورتيشن بوكا جسم وكقع هنا إسقى إسكوا ذاك شرفت له يتيم جيس كوا وصاو ما جاي الدل جا كتل مامين وأصحابتي النبي عليه الصلاة والسلام وح مغلي مركز نين اللي يراه الصحابة كميدو نين يربوه وعيدن ككجري وزيد من أرقم له بهذا الكمغلي النبي يقول عليه الصلاة والسلام يا أذيرك عبد الله بن أبي بالوتي وحل ور عبد الله ورمو حصل كوهذاش الله هيك قال وهدي وطن صوم الرموت اتخذوا إيمانهم جنة دارتي كلفتي والله أنا نوين بان الموحس يعني يا وحس أجا صور قال ونا يلهدوه أنا نوين بان مقول كير بعض إقبنا سنعنو كير مركزها رجع الصحابة هاي أضياشها واحد نور مله ويل كير هو اسمه تي أضيع ندقة ساو دارنا يا عنو كير أرمو يسوي سخلتن وحفهم هذا أنا سودي مرك عنق هرت نيك دلنيرادها زيد بن أرقم صحابي قاونح أذيرك بقى يوم ذا وحول لي البعتاي واحدا كفير سهل الله ذا أو واحدا مقلها شيء وكاس هذا النبي قال تسكو عبيس وورا أذن هو مين بعد كانت استيقظ مرك عنق ويل كده دلنيرادها هو خلي وحين هو مقلي أضيقنا ودارت إلا هو بلاي مش هذا أنا سودي مرك وإلهي كجور رمي وحين منافق والسيدي ويري wiilkii saxaabiga u sheegay aayadii oo ka waramay markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam wiilkii yaraa iyo nabiga hadana way sarkeen markaas nabigu wuxuu ku yiri ilaahay baa ku marxaati furay ilaahay baa hadalkaagii rumeeyay samarid oo fiirsan marka arintaas ka waramaysa walidaalika ninka sida u dhaqmaya saxaabadu markay dhan rasuulka ilaahay ninkan maan dilo nabigu wuxuu dhihi jiray maya dignity-gan iyo sharafteena ka weyna adduunka kale waxa lagaga sheekaysanaya hadaan dilo Muhammad asxaabtiisii buu lahay illa waxa weeye reputation-ka ama dignity-gu magacu waa qaali qofka sharaftiisa inuu ilaaliyo dadku waxay ku sheekaysanayaan illa adduunka kale waxay moodayaan gaalada meelaha fafa ku nool iyo caalamka kale waxay moodayaan ninkan nin quman oo bini aadan oo hagaagsan marka waxa lagu sheekaysan war ma waxaad rabtaan buu nabigu adduunka in lagaga sheekaysto Muhammad asxaabtiisii buu lahay war hayna dhex jooga iska daay ha iska socda فروه كقاد النبي عليه الصلاة والسلام وفيرس مرك إلهي وحوله تبارك وتعالى هم يجوا الذين يجوا سوا منافقين هم يجوا منافقين الذين كويوي يقولون أرنايا لا تنفقوا هنفقيننا حوالي يدقالها سيننا وحبها كب حننا على من عند رسول الله رسولك إلهي أكتي سددك تشوغا وأصحابته شلنها كب حننا كجوية سنشن هلقو سمي isolation هلقو سمي هل قدومي حتى ينفضوا إليك كالعران
وريها كلا تجي waxaad fahmaysaa sanshankan iyo bini aadanka in lagu soo rawo cunaqabatayn xagga dhaqaalaha inuu yahay amal gaal oo uu yahay amal munaafiq waana asaaliibta iyo tikniiga ugu adaga gaaladu ay bini aadanka ay dadka ku dilaan in lagu yiraahdo waxba laga gaday maayo adiguna waxba nooma keeni karta naga gadan mis oo meel cid la waasiday u galeen nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo qoyskiisii shicba abi taalib dhowrka sano markii lagu ooday ee la dhiyaan laga guursan oo yaan loo guurin oo yaan wax laga gadan oo iyagana yaan laga gadan dhaqankii noocaas marka waa dhaqan xun weey waxay dhaheen laa tunfiqu waxba ha ku bixinina oo ha ku nafaqaynina ala man inda rasuulillahi rasuulka ilaahay agtiisa kuwa jooga dushooda shilin ha ku bixinina xataa yanfadu ilaaka kala tagaan ilaahay baa ka warramay tabaaraka wa tacaala inay munaafiq waxoogaa shilimaada uu marmar bixin jiray laga waayo muslimku miyuu baaba'aya ma waxba loo noqon munaafiq wixiisa waxba loo noqon maayo ilaahay wuxuu yidhi walilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday khazaa'inu samaawaati kaydadka samaawaadka risiqa ilaahay baa haya samaawaadka khasnadaheeda iyo khayrka samaawadaha ilaahay uu dhex dhigay samaawaadka ilaahay baa iskale walilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday khazaa'inu samaawaati samaawaadka kaydkooda barwaaqada iyo nicmada samaawaadka ilaahay baa haya iyo wal ardi arlada kaydadkeeda إلهي بقى وحرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولكن المنافقين منافقين تهصيش لا يفقهون ما فهميان أرنتاس وحو منافق قعنتي سكوتشري وكوبا خيلي لأنه وحو النقل ماي إلهي نوحبك قادم ماي الرسول كيسا نوحبك قادم ماي استقوم بنفتي سلبي يقولون وحي أرانا يانا وكاله وهذا الكي ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول المنافقي لئن رجعنا هتان كن نقلنا إلى المدينة مقالة مدينة هدان كل لابنه أو عيدا كل نقضه لا يخرجن ولا يبل وصاريا أو وصاريا الأعز كعزة له شرفت بدن إيجا استشاقية منها مدينة حق هذا وحو كسار دونا الأذل لك دلقة بدن نبي يا أصحابتي شاقية أن مقالة كل نقضه ولا هدان نقضنا إنا لو شوقين وانكب حنا إننا مكان مقالة وانكق حنا إلهي وحو يجي هذا المقالة لا نود شوقي ما هيو لكن كعزة لوايا كدل هنا واي هو إزدوان قف كعزة له كدل قال هنا واي كعزة لو النبي محمد يا أصحابتي إياه كان شوقي مقالة إلهي وحده ولله إلهي بي أسرقناته كلي العزة شرفت إلهي بعزة له ولرسوله رسولك سي أسرقناته وللمؤمنين مؤمنين تعزة أسرقناته الله الرسول كسي مؤمنين تعزية شرف له ولكن المنافقين هسيش المنافقين لا يعلمون موج إلهي وحو قدري مركي مقالة مدينة لقلي عيدا كل نقضي نن أدو قيمة بدن بودالي وصحابية انتو مقالة مدينة جدكي لقلي استاقيبا وحو كوري مقاليس المقالة وضيقي بكول يا بها والله إلى النبي محمد وكوفة الصحوة إنا ذن قلي نمبو أذيك دليل النبي محمد وعزيز النبي قول عيدا كحق دم كسر عدي مركو يمد بوحو رسيدها حق لنا فرح كقد تا هنشوقي حتى هبن nin yaab labuha oo aad u iimaan badan oo cajiib oo dhalay in aad cajiib oo dhalay sababtoo muxuu yukhrij al hayy min al mayyit wax nool ba ilaahay wax baqtiga ka soo saara samar yaquluna waxay oranayaan la rajacna hadaan ku noqonay ila madiinati magaalada madiina la yukhrijanna wala yabilla bixin oo ka saari alla azzu ka izada badan izada leh sharafta leh minha madiina xageeda la dalka dulliga badan iyaga isku wada izada إلهي وحده تبارك وتعالى ولله العزة إلهي بعزية شرف إلهي بأسقناته كلي ولرسوله بأسقناته وللمؤمنين بأسقناته ولكن المنافقين لا يعلمون هسيش المنافقين تموغا يا أيها الذين آمنوا لا تلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون سورة دي بقى جبينيا سورة دي وحي إلهي وكو جبينيا قفك بني آذنك أنت أقبضا طاعة إلهي إيه ذكرك إلهي waxa u badan ee qofka ka mashquuliya waa adduunyo iyo reer waa xoolo iyo caruur baa ugu badan oo qofka daacada ka mashquuliya taasa marka ilaahay nagu baraarujinaya insha Allah suurada soo socotay taqaabuna waan ugu tagi doonaa oo leena leeyahay caruurtiina iyo reerkiina iyo xoolaha aad tabcaysaan ee waqtiga aad gelinaysaan aakhire ilaahay waxba idin ka tarimayaan ilaahay dhikrigiisa iyo daacadiisa idin ka mashquulin taasa ilaahay nagu la dardaarmaya يا أيها الذين كوي آمنوا علي رسول كسر رميو لا تلهكم يين إذن مشغولين أموالكم حولهين يين إذن مشغولين
ولا أولادكم عرورتيننا يين إذن كمشغولين عن ذكر الله حسك إلهي حسكي سيين حولهن يعرورتين إذن مشغولين يين إذن كمشغولين ومن يفعل قفكي سمايا ذلك أرنك قفكي سمايا إنه ذكرك إلهي كم مشغوله غير كيسة يحوليهس فأولئك كواسي هم يقوم بقى الخاسرون كوي خسارة وضدك خسارة وضدك كاس سببتها دنبقنا أذيق عليه آخرنا عذابك أذيق عليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحوة المامية قفك حوليهس وحو كل هي انت عنه إيا انتو كحده إيا وحو صدقيسته انت كلا دنبقنا أذيق عليه ضدن بادوغة تقيسته xoolahaaga waxaad ku leedahay inta aad ka labisato iyo inta aad ka cunto iyo inta akoonka aakhiraad gashato inta kale dambigeediina adaa lagu qorayaa sababtoo adaa shaqeey xageed ka soo shaqaysa adaa kiib gareey dad baana iska leh dambigeediina adaa lagu qoraya dad baana dhaxlay walidaalika baa runtii ilaahay caza wajal uu aad iyo aayad la yaab la wey يا أيها الذين آمنوا كوي الله رميو لا تلهكم يا إذن مشغولين أموالكم حولهن ولا أولادكم يعرورتين عن ذكر الله ذكر إله يا إذن كمشغول حسك إله ومن يفعل ذلك أرنك قفك سمايا فأولئك كواس هم الخاسرون كوي خسارية جاء إلهي وحدوا وأنفقوا بحية مما رزقناكم وحي أن إذن كوي رزقني وحك بحية من تاس وحي تصيصا يعني وحبحية وحلها لكن وحبحية مما رزقناكم وحان إذن كو إرزاقني قيب كبحي من قبل أن يأتي انتو صنوي من أحدكم قف إذن كمذا الموت جيرد انتين ويمن انتان جيرد إذن كو إيمان هذا جيرد كو ما دانا no more chance you're done وفيقول أولي هذا مركز ربي يو لولا أخرتني ما دب إيدكتد إلى أجل قريب مددو يعني مدقعبا إلهما إن يرد بيدكت فأصدق وان صدقي سنيا فأصدق أي فأتصدق وان صدقي سنيا إلهي وأكون وان نقنيا من الصالحين كو في عنبانك من نقنيا وان توبت كينيا مدعي ساتاسي مرك ولن يؤخر الله إلهي دبو مدقيو نفسا إلهي دبو مدقيو نفتي دون تهان نقطة إذا جاء أجلها وقت جادي هي مدة ذي مركتمات أجش هذه مركتمات ودوديت كذي أجش إلهي وطلق على مركتمات والله إلهينا خبير حق قلب وياهي بما تعملون وحد سمين إنسان إلهي سديب أبوه معناه الروح هو قفك وحو chance هستا أنتو نوليه حديتي إلهي أي كتمات there's nothing you can do وحما قبن كرتي معناه هذا وحوي أنت الدنيا ذا اللي جوجا الدنيا ذا دار عمل لكن دار الجزاء ما دار أبال ما آخرنا ودار الجزاء ودار أبال جد لكن دار العمل ما فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ما أنت وعمل لكن حسابي ما جرت آخرة وبرئة آخرة أنا وحيا لو حساب لكن عمل ما جر وحلينا ليه مركة والعمر جينا كفايديست والوقت جينا كفايديست والعافمات كنا كفايديست والحولها كفايديست وحا إلهي كسية كفايديست عافمات إلهي كسية كفايديست حولها إلهي كسية كفايديست وميل خيرنا كشغيسو ميل خيرنا كبح آخر وحيابها السويديني وحا كميد حولها حقيتك كنت قفك المليونير كاي حولها لأكون كوبحو حقيتك كنتي حقيتك بحس حولها لبدا سؤالات بطال حقيتك كنتي حقيتك بحس لبدا سؤالات بجوابه بها حاجات كانتي هذي نقطة حلال بانك كان إلهي وتكون جوليسته تاسكوا ما في الله سناد ناف وحكوا هرت على هذانا حاجاتكم بحس المسألة هذا عجيبة إلهي وحوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كوي علي رسولك سرمية ولا تلهكم يين إذا مشغولين أموالكم حولهين ولا أولادكم يعرورتين عن ذكر الله حسك إلهي يين إذا كمشغولين ومن يفعل قفك سمي ذلك أرنكاس أو كم مشغولة ذكرك إلهي فأولئك كواسي هم الخاسرون يقوم بأكوي خساري وأنفقوا بحية مما رزقناكم وحي أن إذن كو إرزاغني وحكا بحية هذا كقرنيسا حولها إلهي بين السيي وحن كنا لنما من قبل أن يأتي انتو سنؤمن
أحدكم قف إذن كإذن كمذا الموت جيرد انتين وإمن وإنت تشانس كايستان فيقول مركا أو يراهده ربي يو لولا أخرتني ما دب يدكتد إلى أجل قريب إلى وقت دو يعني وقت قابا إلى ما دب يدكتد فأصدق أن صدقيسته وأكون أن نغض من الصالحين كوهم ونكسن أن كمن نغض ولن يؤخر الله إلى هيدب لقي ماي نفس النفر إذا جاء أجلها أجش هذه اعتماد وقت هذه هدو يماد والله إلهينا خبير حقوق قلب بما تعملون وحد سمين